مشروعا oo ah mid ballaaran oo caafimaad ayaa lagu beegsan doonaa maalka 100,000 oo qoys oo xoolo dhaqato reer Puntland ah waxaana lagu talaalayaa ilaa 6 milyan oo neef iyadoona laga hortagayo cudurrada ku dhaca xoolaha oo ay ka mid yihiin jadeecada iyo furuqo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Dr. Maxamed Cabdiqaadir oo hadal ka jeediyay munaasabadii daafurka ee Garowe ayaa macluumaad dheeri ah ka bixiyay mashruucaani malaayiinta neef lagu talaalayo 6 milyan oo neef ayaa la talaali doonaa iyo 1 milyan oo neef oo dawada 3 milyan waxa laga talaali doonaa cudurka jadeecada 3 milyan waxa laga talaali doonaa cudurka furuq waxa ka qayb qaadan doona shaqaaladan 200 oo qof in ka badan gaadiidka ka qayb qaadanaya waxay noqon doonaan oo dadka shacabka ay leeyihiin 50 gaari in ku dhow dhulka howlgalkaasi uu ka dhacayana waa dhammaan deegaanada Puntland tuulo degmo iyo gobolada Puntland si dhammaystiran aan degmo iyo gobol dadka ka faa'iideysanaya shacabka xoolaha loo talaalayo waxay dhan yihiin 100,000 oo qoys tiimamka ka shaqeynayay waxay dhan yihiin 34 tiim iyo 6 tiim oo kormeer dalkaasi wuxuu socon doonaa muddo dhan 45 cisho tiimamku waxay sameyn doonaan wacyigelin ballaaran oo dadka uga digayaan markii xoolaha la daweeyo inaan caanahooda la cabi karin muddo dhan asbuuc hilibkooda aan la cuni karin muddo dhan 2 asbuuc wasiirka xanaanada xoolaha ee Puntland Cabdishamaal Cismaan Maxamuud waxa uu sheegay in guud ahaanba talaalkan uu ka dhici doono gobolada Puntland waxa uu ugu baaqay xoolo dhaqatada reer Puntland inay naaxiyaan xoolahooda runtii miisaanka xoolaheena waxa in badan laga tagaa waa miisaanka haddii xoolaha waxa way fahmo loo sameeyo oo la nasiyo oo la naaxiyo meel lagu naaxiyo la sameeyo waxay noqonayaan miisaan badan yeeshaa oo markaas uu geynta xoolaha qayb ka qaato dadka reer Puntland ganacsatada noqoto shirkadaha xoolaha ka shaqeysan noqdeen dadka dhaqda oo sameyn kara ee nooca sameeyaan oo waxa kusoo jeedinayna inay sameeyaan faam xoolaha lagu hagaajiyo lagu naaxiyo si ay xooluhu u helaan wajiso oo qaybta ka bedelan hada rasmo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay ayaa daafuray mashruucaani wuxuuna digniin u jeediyay shaqaalaha hawshan fulin doona dawadan marka la soo iibinayo dhaqaalaha ay ku taagan tahay yani lama koobi karo dhaqaalaha fara badan baa ku baxa yaan la khasaarayn la soo celiyo yaan la daadinin yaan la qubin yaan la aasin yani sida uu hayda la soo celiyo aniga oo kolley baa dawooyinka qaar in la igu xisaabtami doono inaad ku durtay bahashi aad ka isticmaashay quraaradii yaray haddana in case ay dhacdaba waa dhacdaa wax walba iska yimaadaan please yaan la daadin yaan la qubin ha la soo celiyo si marka dambe mar walba waa loo baahan yahay loo isticmaali karo hay'adda adduunka u qaabilsan beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa Puntland ka taageeraysa mashruucan caafimaadka xoolaha inta badan wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland waxay talaalada noocan ah ka fulisaa deegaanada durugsan sanad walba dhowr jeer waxaase xilligan dheeraad ah in Puntland ay isu diyaarinayso dhoofinta malaayiin neef oo tagaya khaliijka xilliga carafada Yuusuf Maxamed Maxamuud Somali News TV Garowe